give my mother a dancing trip to her maker. gabadhan aad aragtaan waa Elizabeth Annan waa inantaay dhashay haweeneydii ay raggan xafladda u qabteen kuna dul jaaseen meydkeeda dhawaana waxa jinaasadeedu noqotay tan ugu magac dheer la adduunka kooda dhintay ee xafladaya damaashaad u dhigaan ku soo dhawaada sheekada muuqaal noqday astaan la yaab leh dunida oo dhan kadib markii baraha bulshada la isku adeegsaday muuqaalkan oo dadka badidiisu ay ku raad joogeen caafimaadkiisa gaar ahaan markii uu astaan u noqday xasuusinta dhimashada iyo jinaasooyinka waxa dabagalkii ku soo gabagaboobay in muuqaalkan yahay mid xaqiiqo ah una qayb ka ah warbixin ay diyaarisay shabakadda BBC Africa iyadoo ciwaan uga dhigtay qoobka ciyaarka ay sameeyaan sidayaasha naxashka meydka ee Ghana waxaana uu tilmaamay hogaamiyaha kooxda ciyaaraysa markay sanduuqa meydka sidaan in qaabka iyo muuqaalka ciyaarta hadba sida ay noqonayso ay ka codsanayaan macaamiisha qoyska qofka geeriyooday waxaana loo tixgeliyaa qaab dhaqameedka reer Ghana ay u aasaan meydka midka ugu la yaabka badan la dunida waxaana shacabka reer Ghana u sameeyaan cidda ka dhimata xaflado waaweyn oo damaashaad iyo farxad isugu jira tan soo jiidashada mudanna waa in ay munaasabadahaasi qaataan maalmo usbuuciyo halka qaar kalena ay qaataan bilo dhammaystiran sidoo kale waxa caalamku u aqoonsan yahay in xafladaha jinaasadda ahi ay yihiin kuwa ugu qaalisan adduunka mararka qaarna ay sare u dhaafaan hantida lagu bixiyo xafladaha arooska laga bilaabo ka soo qaybgalayaasha oo meelo badan ka imanaya iibka qolofka ama sanduuqa sare ee meydka iyo martiqaadka kooxda fanka ee Ghana iyadoo bakadka meydka loo dhiibayana koox u carbisan oo qoobka ka ciyaaraysa taasoo dhaqaalahoodu kooban yahay adeegyada ay bixinayaanna ku jaango'ay yihiin dalabka qoyska jinaasadda leh bulshada reer Ghana waxay aaminsan yihiin in xafladda ay u dhigayaan meydkooda uu farxad gelinayo ruuxda kan geeriyooday isla markaana waxay u haystaan qofka geeriyooday inuu la joogo kalena faraxsan yahay caalamka kale ayna karaamo iyo sharaf u noqonayso isaga dhinaca kale waxa caadooyinkan dadyowga Ghana ay haysteen waqtiyo aad u fog waa sababta ay dadka imika jooga u la yaaban yihiin waxay sameynayaan reer Ghana muuqaalkan oo ay isla dhex mareen dadka baraha bulshada isticmaala waxay uga falceliyeen in lagu talax tagay xaquuqdii meydku lahaa inkastoo la baahiyay muuqaalka 2017 haddana waxa saaxadda ku soo celiyay dhalinyar ka maadaysanaysa dadka u geeriyoonaya xanuunka khatarta badan ee corona COVID-19 oo dadyowga caalamka ka dhigay qaar aan guryahooda ka soo bixi karin qofkii suuqa soo aadana uu yahay qof nafsadiisa biimaynaya balse alla weyne subxaanahu wa ta'ala ayaa quraankiisa ku sheegay qul lan yusiibana illa ma katabahu Allah lana huwa mawlana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minuun oo macnaheedu yahay waxaad dhahdaan naguma dhaco waxaan alla noo qorin mooyee isagaanu gargaaranaynaa mu'miniintuna Allaahuna tala saarteen